faahfaahinadan dheeraadka ee ka soo baxayo dagaal dhexmaray maleeshiyaad iyo dagaalyahanada al-shabaab qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Halgan ayaa lagu soo waramaya dagaalkaasi uu ahaa mid ay qaadeen maleeshiyaadka kuna qaadeen dagaalyahanada al-shabaab. saacado kooban ayaa dagaalkaasi waxa uu ka socday tuulo ku dhow deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay. maleeshiyaadka dagaalka ku qaaday al-shabaab ayaa guulo ka sheegtay halkaasi, waxaana ay sheegteen in ay ka soo furteen xoolo ay dadka ka aruuriyeen al-shabaab, waxaana hadalkooda ku sii direen maleeshiyaadka inay ka dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab. waxaana haatan lagu soo waramayaa weli inay xiisad ka taagan tahay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, kaasoo la sheegay in uu dhaxeeya maleeshiyaadka weerar ku qaaday dagaalyahanada al-shabaab iyo al-shabaab. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi uu jiro, balse ay haatan cabsi ka qabaan in mar kale ay dagaalamaan al-shabaab iyo maleeshiyaadkaasi iska abaabulay deegaanka Halgan. si kasta aataba ma aan markii ugu horeysay dagaal uu dhexmaro maleeshiyaad ku sugan deegaanada gobolka Hiiraan iyo dagaalyahanada al-shabaab, kaasoo dhowr jeer ay ku dagaalameen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Bashiir Cali Daahir, Radio Higgs, Shabeellaha Dhexe, Jowhar.